kulan wacan saaxiibayaal halkan waa adduunka miidiya kusoo dhawaada wararka caalamka kuwooda ugu waaweyn oo aan idin hayno. Kulan uu shir gudoomiyay Maxamed Cabdullaahi Tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir looga hadlayay xaaladii ugu dambeeyay dhanka amniga ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenada dhanka amniga ee degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi oo ka warbixiyay heerka isku halaynta iyo iskaashiga dhanka amniga ee degmooyinka ay wadaagaan. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa kulanka kadib sheegay in xogaha la isweydaarsaday ay muujinayso in waqtiyada dambe uu soo hagaagayo amniga gobolka Banaadir. 6 degmo oo ku taala gobolka ayuu sheegay in dilal madani ay ka dhaceen uun kaliya, taas oo la micnaha buu yiri in 11 degmo oo kale amnigoodu uu yahay mid la isku halayn karo. Horumarkan dhanka amniga ee la sameeyay ayuu xusay inay sahashay wada shaqaynta iyo iskaashiga wanaagsan ee dhexmaray mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka. inkastoo maalmihii dambe xaaladdu ka wanaagsan tahay sidii hore, haddana weli waxaa jira dhac dadka rayidka loo geysanayo oo ka dhaca qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo kooxaha hubeysan xilliyada qaarkood ay dilal ka geystaan degmooyinkaas. Dhanka wararka caalamka haddii aan eegnana, boqolaal qaxooti Suuriyan ayaa ka soo noqday dalka Lubnaan waxayna ku laabteen tuulooyinkii sidoo kale magaalooyinkii dalka Suuriya. Warbaahinta dowladda ayaa sidaas sheegtay. waxay intaasi ku dartay in basas iyo gawaarida xamuulka ay soo gaareen Suuriya iyaga oo ka tallaabay isgoysyada loo qoondeeyay ee ka imaanaya dhulka Lubnaan oo ay la socdaan boqolaal qaxooti Suuriyan iyo alaabtooda. bishii Abriil 8 ku dhawaad 1000 qaxooti oo dalka Suuriya u dhashay ayaa ku laabtay dalkooda hooyo kana soo laabtay dalka Lubnaan. sida laga soo xigtay Vanessa Moya oo ka tirsan UNHCR 225 qaxooti Suuriyan ayaa loo qorsheeyay inay ku laabtaan gudaha dalka Suuriya, tiradaas oo kor u qaadaysa ilaa 27,000 oo qaxooti oo ku soo laabtay dalkaasi labadii sano ee aan ka soo gudubnay. Sana ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka soo laabtay ay sheegeen in ku soo laabashada adeegyadii aasaasiga ah ee goboladooda ay ku dhiirigelisay inay dalkooda ku soo noqdaan. in ka badan 1 milyan oo qaxooti Suuriyan ayaa ka diiwaan gashan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee Lubnaan. si kastaba ha noqotee, xukuumadda Beirut waxay ku qiyaasaysaa in tirada dhabta ah ee reer Suuriya ee Lubnaan ay gaarayaan 1.5 milyan. qaar ka mid ah 5.6 milyan oo qaxooti Suuriyan ayaa weli ku sugan wadamada deriska ah sida Turkiga, Lubnaan, Jordan, Masar iyo qaar ka mid ah dalal ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. intaa waxaa dheer 1 milyan oo caruur Suuriyan ayaa waxay ku dhasheen xerooyinka qaxootiga ilaa iyo markii dagaalada ay ka bilowdeen dalkaasi dabiiqadii bishii Maarso ee sanadkii 2011. dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Iran Admiral Hussein Khanzadi ayaa sheegay in Iran ay wada shaqeyn ka badda la yeelan doonto dalalka Ruushka iyo Shiinaha dhanka badweynta Hindiya dhamaadka bishan. Khanzadi waxa uu shaaca ka qaaday kulan uu la qaatay ku-xigeenka madaxa qaybta shaqaalaha Shiinaha Sariye Guuto Shuwa Yuwangming, isagoo sheegay in howlgallada wadajirka laga bilaabi doono badweynta Hindiya 27 bishan December aan ku guda jirno. xilliga la joogo ciidamada Iran iyo guud ahaan ciidamada badda ee Iran waxa ka go'an iskaashi inay la yeeshaan Shiinaha, ayuu yiri Khanzadi. gorsii horeysay ciidamada badda ee Iran ayaa soo bandhigay dholotus military aad u ballaaran oo ka socda badweynta Hindiya. taliye ku-xigeenka ciidamada badda Iran ayaa sheegay in ciidanku uu 2 toddobaad gudahooda ku qabsan doono dholotus ballaaran badweynta Hindiya. General Yuwangming ayaa dhinaciisa ku amaanay ciidamada badda Iran inay yihiin ciidamo caalami ah oo istiraatiijiyad ballaaran leh. waxauna sheegay in xukuumadda Beijing ay rumaysan tahay xoojinta xiriirka laba-geesoodka ee ka dhexeeya ciidamada badda ee labada dal, wuxuuna ku baaqay in la wadaago waxbarashada farsamada iyo bixinta macluumaadka. sargaal u hadlay Shiinaha ayaa sidoo kalena sheegay in howlgallada ciidamada badda ee soo socda ay muujinayaan midnimo u dhaxaysa dalalka Iran, Shiinaha iyo Ruushka. sanadihii la soo dhaafay, ciidamada badda Iran waxay kordhiyeen joogitaankooda biyaha caalamiga si ay u ilaaliyaan marinada badda oo ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga. ugu dambeyntiina, madaxweyne Donald J. Trump ayaa dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron ku eedeeyay hadalkii ka soo yaray ee ahaa in hadafkii gaashaanbuurta NATO uu dhintay. madaxweyne Trump ayaa haatan ku sugan magaalada London halkaas oo kaga qayb galiyo 7 sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay gaashaanbuurta NATO. war-saxaafadeed ayuu Mr. Trump ku sheegay in NATO ay qabatay shaqo badan oo ka mid ah hadafkii loo aasaasay. hadalka madaxweyne Macron ayuu ku sheegay inuu yahay mid aflagaada ah. wuxuu sidoo kalena sheegay inay u muuqato in Faransiisku uu ka baxay NATO, balse sababta ma uusan sharxin. North Atlantic Treaty Organization oo NATO loo soo gaabiyo ayaa waxaa la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana looga lahaa in laga hortago dhibaatadii sii baahaysay ee midowga Soviet. 29 xubnood ayaa waxay ku heshiiyeen inay iska caawiyaan weerar kasta oo lagu soo qaado, balse Mr. Macron ayaa bishii la soo dhaafay sheegay in xubnaha ka tirsan NATO aysan si wadajir ah iskala shaqeyn arrimaha taagan waqtigan.
wuxuu ku tilmaamay in gaashabuurta NATO uu dhintay hadafkii loo aasaasay isagoona carabka ku adkeeyay howlaha uu Mareykanku wado. NATO ayaa doonaysa qorshaha lagu difaacayo Poland, Lithuania, Latvia iyo Estonia kuwaas oo qatar ugu jira inuu Ruushku weeraro balse weli ma cadda faahfaahinta ku saabsan qorshahaas. Ururka isbahaysiga NATO ayaana loo sameeyay in laga hortago ururkii Midowga Sofiyeed. Su'aalo ayaa laga keenay sii jiritaanka ururkan maadaama ururkii Midowga Sofiyeed ee quwadda lahaa uu burburay ku dhawaad 30 sano ka hor. Madaxweyne Donald J. Trump ayaa si joogto ah uga eedeeyay dalalka Yurub ee xubinta ka ah ururka NATO inaysan ka qayb qaadan culayska difaaca ururkan. Guud ahaan wanaag inta wararkii ugu waaweynaa Soomaalida iyo sidoo kalena caalamka oo aad kala socoteen adduunka media. Si aad u hesho macluumaad dheeri ah, fadlan rukumo channelkan oo subscribe saar. Mahadsanid, nabadgelyo.